بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhamaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada janaalka waxbarashada iyo Ibrahim insha Allah maanta waxaan xalineynaa maadada Carabiga fasalka 8aad sanadkiisa ugu dambeeyay imtixaanka agaasimka waxbarashada gobolka Banaadir ardayga qaybta koowaad alqism alawwal qaybta koowaad waxaa waaye qadcada akhri Faadima daalibatun mujtahidatun waa arday dadaal badan taciish fi madiinada Muqdisho مع أسرتها مقالات مقدشة كلها شاي وحال ناشر ركيلة حافظة فاطمة القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمرها يدو تمنجرة قرآن حفظتي ثم درست الحديث والعقيدة الإسلامية والسيرة النبوية في البيت كتب نقول كده حكو برتي أحاديث هي عقيدة أي برتي على أي سيرة تذهب فاطمة إلى المدرسة صباحا صبحي أي دوسيجاتا وتبعد المدرسة عن بيتها قليلا gurigeeda iskuulka gurigooda wax yar ayuu ka dheer yahay tarkaba Faadima waxay raacdaa xaafilatul madrasa baska iskuulka ama beetaha ka raacdaa gurigeeda hortiisa kula sabaax subax walbaba tarjicu ila albeyti fi waqti duhri waxay u soo laabataa guriga xilliga duhurka تعمل فاطمة مع أمها في المساء galabtii hooyadeeda la shaqeysaa wa taqra'u duruusaha sidoo kale casharadeeda akhrisaa wa taxullu at-tamaariin layliga ka shaqeysaa fi nihaayat al-usbuuc usbuuca dabaadigiisa tazuuru Faadima jaddatiha allatii taskunu fi madiinati Afjooy waxay ziyaaratay ayeeyadeeda markaasi oo ku nool Afgooye وتبقي معها حتى مساء يوم الجمعة إلا laga gaaro galabta jimcaha way lasoo joogtaa Faaduma تحب مشاهدة المناظر الطبيعية waxay jeceshahay muuqaalada dabiiciga inay fiirsato وتذهب دائما إلى البساتين الجميلة والحدائق العامة mar walba waxay aataa beeraha iyo sidoo kale beeraha markaasi oo beerta nabadda oo kale meelaha xadiiqooyinka في الأسبوع الماضي أسبوع هوري ذهب فاطمة إلى ساحل المحيط الهندي أسبوع هوري waxay aad badda oo markaas Indian Ocean-ka مشاهدة أسماكا كثيرة kalluun fara badan ay soo aragtay warakibat qaariban safiinatan sagiira waxay fuushay marka doon yar ay fuushay wajara biha fi lbaxri ay kula socotay badda وبعد دقيقة كدب عادت إلى الساحل waxay kusoo laabatay xeebta Masruura iyadoo faraxsan awalan ugu horeyn iqtara al-ijaaba saxiixa jawaab sax dooro min badaa'il al-aatiha ka dooro mustaciina adoo adeegsanayo bilqidcati saabiqa marka qidcadan hadda aan soo akhrinay su'aalaha oo markaas bilowga oo gobgelida loogu jawaaba marka su'aasha koowaad waxay ku leedahay tajibu Faadima tuxibu Faadima maxay jeceshahay jawaabteedu waa xarafka ba oo ah almanaadir dabiiciya muuqaalada dabiiciga taciisha Faadima maca arday jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka jiin oo ah usrataha sidoo kale su'aasha saddexaad waxay ku leedahay xafidad Faadima alqur'aan alkariim wa cumruhaa iyadoo markaasi ah 10 سنوات 10 jir alif waa xarafka alif waa tabcud المدرسة can beyti Faadima Faadima iyo gurigooda iskuulka waxay kala dheeriyiin la dhahay jawaab sax waxay noqonay ardayda ba oo ah qaliilan wax yar macnaa qaarib macnaheedu waxaa loola jeedaa ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka da oo ah safiinatun sagiira su'aasha lixaad waxay ku leedahay darasat Faadima alxadiis walcaqiida alislaamiya والسيرة النبوية waxay ku baratay siirada iyo axaadiista في البيت gurigooda ku baratay waa xarafka ba jawaab saxda su'aasha toddobaad waxay ku leedahay tadhabu Faadima ila almadrasati Faadima waxay iskuulka ku aadaa jawaab sax waxay noqonay xarafka alif oo ah alxaafila bilxaafila su'aasha sideedaad oo gobgelida waxay ku leedahay taqra'u Faadima duruusaha duruusteeda waxay akhrisaa
jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka alif oo ah fi lmasaa'i subaxi. Su-aasha sagaalaad waxay ku leedahay tazuuru faaduma. Faaduma waxay booqatay jaddataha ayeeyadeeda waxay booqataa. jawaab sax waxay noqonaysaa fi nihaayati al-usbuuci. في نهاية الأسبوع oo ah xarafka ba dhamaadka isbuuca. taciishu jaddatu faaduma waxay ku nooshahay faaduma ayeeyadeeda fi madiinati xarafku waa oo saxda ah waa xarafka ba oo ah abjooy. tobankaas su-aal ugu horeysa waxay ahaayeen oo laga soo bixiyay qidcada hadda soo aqrineyna. su-aasha 11aad iyo wixii ka dambeeyay waxaa noo bilaabanaya su-aalihii buugga sideedaadka markaasi casharadii buugga sideedaadka kusoo marnay. maa ajmalu al-arda wal-mixraasa binadmihaa. maa ajmala al-arda wal-mixraasa yunadimuhaa qasiidatun daata taqdiicin wa awsaanin. hada albayt beydkan waxaa iska leh lishaacir gabyaaga oo markaasi caanka ah oo lagu magacaabo. waa jawaab sax waxay noqonaysaa arday xarafka da oo ah maxamuud qunayn gabyaa lagu magacaabo ayaa iska leh. sidoo kale midda xigta su-aasha 12aad cabdullaahi daalibun dakiyun. cabdullaahi waa arday daki ah oo caqli badan. asifatu fi hada almisaal sifada tilmaamtan sifada tusaalahan ku jirto hiya waa xarafka alif oo ah dakiyun. sidoo kale su-aasha 13aad waxay ku leedahay macnaa kalimatu tirbo. atirbo hiya macnaheeda waxaa waaye arday jawaab saxda waa xarafka ba oo ah almumaathilu fi sinni kuwa markaasi oo isku daada ah. yaa muxamed ijtahid yadullu hada almisaal misaalkan wuxuu caddeyn u yahay. jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka alif oo ah tawkiidul lafdiyi waaye. sidoo kale arday su-aasha 15aad waxay ku leedahay qara'tu kitaabul bukhaariy muqadamatuhu. nawcul badal waxaan aqriyay kitaabka oo lagu magacaabo kitaabka bukhaari aqriyay hordhiciisa aqriyay. nawcul badal nooca bedelkaani fil misaal tusaalahan ku jiro waxaa waaye arday jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah badalul bacdi min alkulli. sidoo kale su-aasha 16aad anwaacul badal bedelka noocyadiisa waxaa waaye jawaab sax waxay noqonaysaa arday xarafka alif oo ah thalaatha. sidoo kale su-aasha 17aad waxay ku leedahay alficlu alladii awaluhu xarfu cilla. ficilka markaasi awalkiisa oo xaraf oo cilo oo gala huwa waxaa loo yaqaanaa ficilkaasi. jawaabtu waxay noqonaysaa saxda xarafka ja oo ah misaal ayaa loo yaqaanaa. 18aad waxay ku leedahay calaamatu tarkhiim tudacu fi nihaayati alkalimaat wa tamaamuhu. calaamada tarkhiimka loo adeegsado kalaamka dhammaadkiisa iyo dhamaystirkiisa hiya waxaa loo yaqaanaa waa xarafka ja oo ah alnuqda. 19 waxay ku leedahay alficlu alladii aakhirahu xarfu cilla. ficilka oo aakhirkiisa xaraf cilla oo ku jiro hiya waxaa loo yaqaanaa yusama waxaa lagu magacaabaa bi. jawaabta saxda waa xarafka ba oo ah naaqis. sidoo kale su-aasha 20aad waxay ku leedahay min xuruufil cadfi waxaa ka mid ah. jawaab saxda waxay noqonaysaa arday xarafka da oo ah alwaaw walfaaw iyo thumma. sidoo kale arday su-aasha 21aad waxay ku leedahay kalimatul idaar huwa waxaa loola jeedaa. jawaab sax waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah al-ixaada. sidoo kale 22aad waxay ku leedahay macnaa kalimatu qaafila huwa waxaa loola jeedaa arday arraakib aa loola jeedaa xarafka ba jawaab saxda ah. su-aasha 23aad waxay ku leedahay macnaa kalimatul fulk. jawaab sax waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah asafiina. su-aasha kale xigta 24aad axmed shawqi shaacirun waa gabyaa. jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah masriyun waaye. su-aasha 25aad waxay ku leedahay tilka dabiicatun qif binaa yaa saari xataa uriika badiici sunci lbaari. wasafa shaacir fi lbeyt gabyaaga wuxuu beydkaani ama meeriskaani ku tilmaamay
oo sifeynayo waxa uu sifeynayo waxay ahayd الطبيعة waxyaabaha markaas oo dabiiciga uu tilmaamayo. Su'aasha 16aad arday waxay noqonaysaa الكلمة المضاد لكلمة ناقة. ناقة oo hal ah kelimada lidkeeda ah oo kasoo horjeedo waxaa jawaab saxda xarafka wuxuu noqonayaa xarafka ba oo ah aljamal. sidoo kale arday su'aasha kale oo xigta oo 27aad waxay ku leedahay atuu ahlahum bimucjizatin tafanun fayalaytukum ta'tuuna bilkalimaat qaa'ilu bayt huwa. gabaygan abwaanka tiriyey waxaa loo yaqaanaa waa su'aasha 27aad. abwaanka curiyey waa xarafka ja oo ah xaafid ibraahima curiye. sidoo kale 28aad waxay ku leedahay su'aasha 28aad waxay ku leedahay فإن ماء زرعها أزدانت بألوان. معنى كلمة أزدانت معناheeda waxaa loola jeedaa arday jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa su'aasha 28aad waxay noqonaysaa jawaabta saxda xarafka alif oo ah تزينت. su'aal 20aad waxay ku leedahay maxamuud quneym shaacirun carabiyun waa gabyaa carab ah wuxuu kasoo jeedaa arday jawaabta saxda waxay noqonaysaa min Misr waa xarafka ba waa gabyaa masaari ah. 30 waxay ku leedahay su'aasha 30aad ee qawowgilida waxaa waaye wasictu kitaab allahi labdan waqaaya wamaa diqtu can ayin bihi wacidaad wasafa shaacir fi lbeyt. gabaygan wuxuu ku tilmaamay gabyaaga xarafka alif ay noqonaysaa jawaabta saxda oo ah makaanatu luqatu alcarabiya wa qudratuha. sidoo kale ardayda qaybta xigta oo labaad waxaa lagu yiri waxaa isku aadisaa qaa'imatu alif waxaa ku aadisaa qaa'imatu ba oo ah wixii ku habboon. midda 31aad waxay ku leedahay cinda ikhtibaasi nasi bilafdin nastaqdimu waxaan adeegsanaynaa arday jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa calaamatu tansiis ah lagu magacaabaa. sidoo kale xarful cadfi yufiidu wuxuu faa'iideeyaa tartiib maca taraaqi waxaa ku aadan ardayga thumma ku aadan. المقصود بزين الحياة في قصيدة نصائح waxaa loola jeeday bizayn alxayaat waxaa loola jeeday jawaabta saxda waxay noqonaysaa arday al-aadaab wal akhlaaq alxasana ay noqonaysaa. sidoo kale su'aasha 34aad waxay ku leedahay hada imtixaanu shahaadiy تعرب شهادي شهادي waxaa la iraabay shahaadi waxaa waaye sifatu marfuuca waa sifo markaas la rafciyey. sidoo kale ardayda su'aasha 35aad waxay ku leedahay الغرف بين كلمتي الفرق بين كلمتي يحيى ويحيى هو فرق ودحه waxaa arday jawaabta saxda waxay noqonaysaa إن الأولى اسم والثاني فاعل والثاني فعل عنده. سؤاشا 16aad su'aasha 36aad المقصود العام بفسخ هو waxaa loola jeedaa arday الخروج عن الطاعة loola jeedaa. العقل arday waxaa ku aadan يمنع الإنسان عن ارتكاب القبائح ويميز به بين الصلاح والضالح عنده. sidoo kale arday su'aasha kale 38aad waxaa waaye xadara الطالب نفسه إعراب كلمة نفسه waxay noqonaysaa توكيد معنوي مرفوع رفعه ضمة الظاهرة على آخره saasay noqonaysaa. arday su'aasha 39aad محمود مجتهد ومجتهد
في دروسه إعراب محمود إعرابتيda waxaa waye arday مبتدأ ومرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره sidoo kale ardayey su-aasha 30 iyo su-aasha 40aad waxay ku leedahay ina salaata tanhaa cani lfahshaa walmunkar إعراب كلمة منكر jawaab sax waxay noqonaysaa اسم معطوف على الفواحش على الفحشاء مجرور وعلامة جره كسر ظاهرة على آخره qaybta oo waxaa u gudbaynaa oo saddexaad الدرس الثالث املأ الفراغات التالية بما يناسبها جمع كلمة درس جمعeeda maxaa waye درس جمعeeda ardey wuxuu noqonaa دروس oo noqonaa sidoo kale mufrad kalimatu mudun iyadana mufradkeeda wuxuu noqonaa madinatun oo noqonaa mufrad kalimatu kalimaad mufradkeedana wuxuu noqonayaa kalimatun qaybta su-aasha 34aad waxay ku leedahay 44aad aan dhehe الأمانة محمودة أمانة waa mid la mahadiyo الأمانة إعراب الأمانة waxaa waye arday مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره الأمانة kalena waxaa waye إعرابteeda waxay noqonaysaa توكيد لفظي way noqonaysaa waxay isu إعراب yihiin midaan isu إعراب yihiin توكيد لفظي مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره dheheysaa sidoo kale waa توكيد lafdi laakiin macnaheedu ma arday sidoo kale waxaa ugu dambeyso 45 naaqatun jamceeda waxaa waye niyaaq ardayga qaybta ugu dambeyso waxaa waye القسم الرابع التعبير waxaa lagaa rabaa inaad tacbiirisid تحدث عن منزلة الأم في الحدود 10 أسطر waxaa lagu dhaha waxaa ka hadashaa makaanada ama darajada ee hooyada leedahay ugu yaraan 10 sano soo qor marka arday 10 sano hal anaa kuu filan 10 sano makaanatul um fil islaam qaybtaan oo qoreysaa ilaa xadiiskaa geyneysaa oo muttafaqun caleyh waxaan filaya arday inaad fahanteen aad ka bogateen insha allah walaalihiina u shargareeya ana ilaawina inaad janaalka subscribe soo dhahdeen oo aad na share gareysatiin